muuqaalkan waa muuqaal ka duwan muuqaaladii hore. waa nin kufsan rabay gabar uu qabo walaalkiis. waxaa ninka jirdil aad u xoog badan u geysteen gabadha uu kufsan rabay oo ah dimaashidiis iyo gabar kaleeto. muuqaalkan gudihiisa waxaan ku maqli doonaa ninkan oo la garaacaya iyo sidoo kaleeta sababta keentay in ninkaani la jirdilo. fadlan daawada waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad laag saartid si uu walaalo fara badan u gaaro. sidoo kale fiideoga sii sheergaray waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa idin salaam walaalaha qaaliga meel walboo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada janalkeyga. halkaad igala socotaan waa Fahiima Show. soo dhawaad ayaa idin leeyahay. muuqaal 24kii saac ee lasoo dhaafay baraha bulshada aad u qabsaday oo hadalheyn fara badan ka dhalisa ayaan idiin wadaa. muuqaalkan ayaad waxaad ku arki doontaan nin ay jir dilayaan laba gabdhood. labadaasi gabdhood oo mid ah dimaashidiis oo walaalkiisa qabo. sidoo kale gabar kale ayaa muuqaalka duubayso. marka hore aan wada aragna sida ninka loo garaacayo kadibna waxaan wada ogaan doonaa sababta keentay in ninkaani la garaaco. daawadayaal sida aad u wada jeedaan ninkan wuxuu ku qayilayay ama uu jaadka cunaya guriga. waxaana halkaas idinkaga muuqata halkii uu fadhiyo uu jaadka ku cunaya. sidoo kaleeto agabkii markaas uu isticmaalaya. ninkan ayaa asiga oo fadhiyo isla markaasna sugaya gabadha dimaashidiisa si ay markaas u wada sheekaystaan isla markaasna uu u kufsado ayaa waxaa kala kordhacay ul gabadhii uu sugaya iyo markaasi gabar kaleeto oo guriga ay isla joogeen. waxay usoo qaateen alwaaxyo sida aad u jeedaan. ninkii oo fadhiyo ayaa ul lagu bilaabo ilaa uu ka istaagay isla markaasna oo xanuun fara badan uu ka dareemo. ninka muusan hadli karin sababtoo waxa uu ogaa waxa uu sameeyey. dhowr beri ayuu guriga ugu soo noqnoqonaya asiga oo raba dimaashida inuu markaasi fara xumeeyo. dimaashida hadalkeeda ayaadna ka maqli doontaan. dhowr beri ayaad ii soo noqnoqonaysay ee maxay aheeda waxaad iigu soo noqnoqonaysay. markaa dimaashida oo hadalkii sii wado isla markaasna garaacistii ninka lagu sii wado. bal muuqaalka aan sii dhegaysano. Yes, our Kali. Yes. Thank you, our Kali. Thank you. waxa ay u sheegaysaa oo ay xasuusinaysaa ninka qaba isla markaasna ay leedahay ma ilowdo inuu xasan hebel qabo. maxaad iigu soo noqnoqonaysa maalmahan oo dhan. ninkan ayaa sida ay sheegaysa gabadha lagu magacaabo qaali u soo noqnoqonaya dhowr mar oo waxa uu ahaa dimaashigeed. umana malaynaynin markaas inuu ninkaasi sida ay hadda ayada sheegaysa uu ay kala kulmi doonto. laakiin waxa uu iska dhigay dimaashi fiican oo guriga imaado reerkana soo booqdo. kadibna waxa ay ogaatay ninkan in uu ayada damac uga jiro. laakiin maxay samaysay mudankiisa ayay marsiisay. bal ninkan oo weli garaacistii ay ku socoto dimaashida iyo gabadha kaleetana ay isugu tageen oo alwaax ay ku garaaceen. sidoo kale gabar kalena ay muuqaalka duubayso oo ay leedahay yees kuwad oo bidaarta ka garaac ayaan sii dhageysan doonaa muuqaalkiisa. Our Kali, thank you. Our Kali, thank you. Our Kali, thank you. أرقصك والله. indha adeegiisa ninkan intuu u imaaday gabar uu dimaashidiisa oo walaalkiisa qabo oo gabar kale ay la joogto ayuu waxa uu ku yiri gabadhan kula joogta naga bixi oo markaasi anigii adiga ayaa hadlayno. dimaashidu hore ayay u aragtay in dhowr mar ninka uu soo noqnoqday. kadibna waxa ay saaxiibteedii ayada bilaabeen inay ninkii garaacaan oo isugu tagaan. intaas kadib garaacis kadib ninkii oo xanuunsaday isla markaasna jirdil aad u xoog badan loo geystay oo dhan walba jirkiisa laga garaacay. bal muxuu sameeyay
بح خلينا تكون هاي إذا صار بعد دي سقناها إذا صار بعد إذا سقناها بعد إذا صار أنا بدر إذا صار الباب كوب ولا صار كذا صار إذا صار نبجي يا عباس أكبر منه كل هذا taleefankii ayay ka qaadatay waxa ayna u sheegtay in guriga si degdeg uu uga baxo adiga oo og ayay ku tiri inuu xasan hebel i qabo ayaad keentay inaad markaas aniga i damacdo ninkan oo ay sheegaysa inuu dimaashadiis yahay fal aad u xunna uu kula dhaqmay dimaashadiis ayaa waxa ay u sii furtay albaab waxa ayna tiri haddii aadan guriga si degdeg uga bixinin ogow baangad ayaan kuu soo qaadan doonaa إنسان تلفكم معايا نحسلوه إذا بحنا ويا إذا بحنا إذا بح هذا دارتي ما يصير ما هي كان حلو أنا اللي بلا يا عبانو حتى لا تحسوا حتى لا تحسوا كل يا سلمون نحسلوه هنا فيسبوك ما هو بيجا وان دوام تكرم إمبارح إذا بحنا إذا ما كنت رايح ini bang, mana aku bang, kamu kesini, bang ini. gabdhuhu sida ay ul ugu wadeen ayay ninkii albaabka ka saareen runtii mudankiisa ayay marsiiyeen waxaan arkay fiidiyogan rag badan oo ka soo hadlay isla markaasna u hiilinaya ninka la garaacay ee dhahaya gabadhu way qaldaneed iyo ma ahaan in ay fiidiyo soo duubaan oo dumarku marka 9-ka ay ka oynayaan social media ee ninkii qaba iyo kii saaxiibka la aha uu ka soo duubaya muuqaal taasi waa caadi miya ragow oo marka rag nin la garaacana waad u hiilinaysaan marka gabdhaha markaasi fiidiyo laga duubana waxaad leedihiin maxay u soo duubtay maxay ninka iskaga celin weysay iyo maxay u ogolaatay haddaba anigu waxa aan leeyahay si wanaagsan oo fiican ayay samaysay gabadha lagu magacaabo qaali waana ku raacsanahay nin kasta oo gabar la qabo isku dayo inuu shukaansado ama inuu faro xumeeyo sidaanoo kale ha loo garaaco oo fiidiyo ha laga soo duubo raggu haddaan la ceebeyn ma joojinayaan dulmiga ay gabdhaha ku wadaan gabar kastana waxaan leeyahay ha ku dayata qaali oo ninka haddii uu dulmi ula imaado sidaan iyo si ku xun ha ula dhaqanto oo social mediahana soo geliso waa idin mahad celinaya asxaabay waxa idinka codsanayaa muuqaalka inaad laag saartaan si walaalo fara badan uu u gaaro gabdhahana ay isaga ilaaliyaan ragga xunxun markaasina ay sidii qaaliyo kale ay isaga celiyaan sidoo kale fiidiyoga laag saar sii sheergalay asxaabtaada la wadaag muuqaalka marka aad daawatid kadib sidoo kale waa kuu mahad celinaya adiga i daawanayo waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay sida mar walba aad janalkii ugu xiran tihiin sidaas iyo muuqaalkan muuqaalka xig intaa ku kulmayno nabadgelyo